ما سنتهاي دكتور حسن وكاغماد علنايا وهرين أدي أن سلامية دمان ضد كسو قيب قليمان برنامج كان oo u badan dumar maadaama ay cadeynayaan in bahda caafimaadka ay dumar u badan yihiin si gaar ah ayaan idin salaamayaa salaan kadib waxaan kaloo in ku boorinayaa baanalada dambe ama discussionada dambe in gabdhuhu ay qayb fiican ka qaataan maadaama hadda aan kaliya ku fadhiyo waa maasantihiin marka u gudbo qodobka maanta aan rabay inaan ka hadlo oo aad muhiim u ah wuxuu yahay marka health professionals ka am bahda caafimaadka waxa laga marmaan ah inay ku dhaqmaan medical ethics sidaan wada ogsoonahay waxa jira qawaaniin la isku raacsan yahay si adeeg fiican loogu qabto bukaanada si bukaankaaga aad u adeegto si safe ah oo nabadgelyo leh sidoo kalena waxtar leh sidoo kalena xushmad ku jirto waxa laga marmaan ah inaad ku dhaqanto afarta tiir ay ku taagan tahay anshaxa caafimaadka waxaan rabaa maanta inaan wax yar bidhaamiyo kulay wix su'aal qabtay idinka na weydii doona laakiin afarta tiir ee laga maarmaanku u ah anshaxa caafimaadka waxay tahay koow bahda caafimaadku waa inay ahaadaan beneficiaries kuwa ka shaqeeya macnaha good doing good waa inaad wax fiican u sameyn kartaa bukaankaaga oo macnaheedu tahay bukaanka marka uu ku yimaado koow horta waa inaad dhageysan kartaa labo qodob Soomaalidanada ka maqan inta badan ama dhaqaatiirtanada ay ku dhaqmin laakiin ay ogyihiin ayaa jira kaasoo ah qofka aad daaweynaysa waa inaad bartaa horta cudurka oo qabo muxuu yahay cudurkan baaritaan nooc u baahan yahay daawo nooc u baahan yahay marka qofka barti kadib ayaa go'aan la isla gaari karaa laakiin waxa arkaysaa qof bac daawo wata ku dhahay xanuun la isu sheegay xanuunka laga soo sheegay muxuu yahay ma yaqaan ma faafa ilmaha uu gudbin kartaa ma oga daawadiisa ma fududahay ma adag tahay ma qalliina go'aan u bal iska gaara waa lagu qala ama daawadan qaado wuxuu ku leeyahay waxba la iga sheegay buro ma yaqaan burada xagee uga taala marka taasna wax laga fiican yahay waa in lagu dhaqmaa tiirarkii ay lahayd anshaxa caafimaadka oo ugu horeeyo inaad beneficiaries samaysid oo aad bukaanka wax u wanaagsan samaysid tusaale ahaan waa inaad bartaa xanuunkan waxa uu yahay iyo wadooyinka marayo qodobka koowaad ama tiirka ugu muhiimsan waa midkaas tiirka labaad wuxuu yahay inaad noqoto adaa bukaanka u shaqeynayso non maleficence oo ah adaa adiga wanaag u sameynay qatar ha gaarsiinin do no harm qofkan wax asi dhibaaya ha ku sameynin adoo la rabay inaad daaweysid oo daawo kuugu yimid ka war adaa wax qatar leh ama wax dhiba u keentay qof wax yar ah uga xalin karto daawo uga xalin karto hadaa wax dhibaato u keenaya ama lacag uu soo awoodin ama daawo uu soo awoodin ama qaliin uu soo awoodin amarsiis marka caafimaadka tiirka uu ku taagan yahay anshaxiisu waxa qayb ka ah qofka wax qatar u keeni kara ama dhibi kara ha ku sameeynin qodobka saddexaad wuxuu yahay autonomy oo ah in bukaanka aad madax banaanisiis waxaan bar u sharax cudurkan sidoo u sharax ha ku qasbin waa ina qaliin martaa ma jirto in lagu sameeyo bukaanka waa in loo sharxa xanuunka loo sheegaa wadada loo jiheeyaa kadib asaga la yiraahdaa haye saddexdan qaab lagu daaweyn karaa qaabkaas muhiima adiga maxay kula tahay waa in xurriyad la siiyay freedom weyn oo helaan qodobka aan rabo in aad uga hadlo oo dadka naga Soomaaliyeed ka dhibaataysan waa tiirka afraad wuxuu yahay justice waa in cadaalad helaan inta badan waxa aragnaa meeshaasi waa meesha ugu dhiban oo dadku ay ka sheegtaan waana meesha bini aadan dhan ay ku adag tahay inuu maareeyo tusaale ahaan hadaa u soo qaato laba bukaan coronavirus ka soo qabo laba bukaan ku joogta xaaladooda aad ay u adag tahay mid walba xuquuq uu leeyahay laakiin xaaladooda adag darteed waxay u baahan yihiin mishiin ka caawiya neefta adigana waxa haystaa hal mishiin labada bukaan yaa ku xiraysan mid kasta oo kamid ah hadii uu waayo uu dhimanayaa adiga waxa laga rabaa in cadaalad sameeysid waa meesha ugu fudud hadaa fiirisid kana igu reerniyo kana isku egnaa asisiis kawar taas waxay noqon cadaalad darrada ugu xun waxay noqon kartaa sida ugu fudud cadaalad u sameey karto labada bukaankii ku soo horeeyay iyo sida medical ahaan xaaladiisa marka u fiirisid laakiin cadaaladda waa laga marmaan waxa cadaaladda qayb ka ah bukaanka isagoo saf kuugu jiro oo mid xanuunsan yahay oo safkan ku jiro inaad mid saaxiibka ama in adeerka albaab ka soo gelisid ee taraajooga kadibna u shaqeysid ogow dadkii kama aad fasax qaadan qof ka darana meesha fadhiya waqtiga iyo wax dhan oo ninkan ka carray marka afartaas tiir caafimaadka waxay u tahay laga marmaan waxa kale oo anshaxa bahdanada caafimaadka nagala rabo inaan dhowrno
dadka naga Soomaaliyeed ama bukaanadanadun u dhiban yihiin waxa qayb ka ah in bukaanka aan la dhageysan tan labaad waa inaan la xushmayn waxa xushmada ama xuquuqaha uu leeyahay qayb ka ah ina bukaanka aada magaciisa baran ee uu wacdo bukaankii eernada bukaankii hepatitiska bukaankii hebelka qofku magacu leeyahay oo ku yimid markuu yimaaday su'aashkooda la weydiiyay waxay magaca meeqa jirtaa Soomaa wayna magaciisa ugu wacdaa waxyaabaha laga maarmaan ku ah qofka ka shaqeynaya bahada caafimaadka ka shaqeynayso aad afartaas tiir ilaalisid way fududahay inta kale ina ilaalisid koo qofka waxa uu wanaagsan ina ku dadaasho bukaankaaga labo inaad adiga qatar u geysan saddex maxaa isku raacnay inaad qofka free ka dhigto ana jaanisiisid oo aad xurriyad oo go'aan ku gaari karo aasiisid وهي كرتا وأوتومامي كرتا ماش وفي عني ماش وحن لكن كونها كو قصبين إنا قوان كأديك عربت أوقات تنكلنا واحد هني وين عدالة سميسان وأجنها عدالة وواحد لكن ووح وناكسن مركز سميسيد أيانا أوجان كرتا فإذا لا عدالة دردنا ووح أجوب بدن إيدك كلا تكسيه هدي عافمات يقف حنوسن أي جشنا ويكدرنت هذا كورن أديك أجوب في عن صاحبك أسميسيد قف كلنا waxa tusaale yar in soo qaadanaya waxaan xasuustaa ilaahay una xariisto waxa jira doctor liira doctor Ahmed Mahdi oo ahay dhakhtar ku taqasusay sableyda oo galmudug ama caasimada Dhusmareeb 20 sano wax ku dhow dhakhtarka ahay oo ayaan dhaweed geeriyooday markaan wax barashada iskuulka dhiganay ayaan waxaan maqlay iyadoo dadku aad u kacsanaa jireen waxaan la yaabi jiray maxaa lagu haystaa dhakhtarka waxa la dhigi jiray marka dhakhtarku wuxuu yiri inta uu ii joogo معناها شن قف أو أن كده ويكر تي بي هل قف حبت كل عدد وحن هور مرينا يا شن تقف تي بي ذقبت تسمع ليه محيتها هل قف أو حبت كل عدد أسجع ليك بحايا أسجع لمن كره أسجع لا يعيش معكره لكن شن قف أو تي بي قبته بقولال كل أي جارسين كرته ونقل من كره بري مركب حياة قار شيء وكل مهم سين إن لقى هور مريو إذا قاعد في ما تكتاسنا غيب أي كتاب وما سنتي وحسوا على ذي كانوا يديدون